casharkan aan hadda qaadanayno casharka ku xiga ee Java-ga ah wuxuu noqon doonaa cashar practical ah ama cashar aan ku qorayno programkayagii ugu horreeyay ee Java-ga ah. Marka maadaama aan codingka bilaabayno, waxaa muhiim u arkay laba waxyaalood in aan fahno inta aanan programkayaga u horreeya aanan qorin. Labadan waxyaaloodna waxay kala yihiin xogta iyo noocyadeeda, ama af ingiriisdaan ku sheegayna data iyo data types. Luqadaha caadiga ah ee aan ku hadalna badankood sida Soomaaliga, waxaa qoraalkooda badanaa loo kala qaybshaa saddex nooc. Saddexdan noocna waxay kala yihiin xarfo, lambaro iyo calaamado. Noocyadani waxaan odhan karnaa af ingiriis haddaan ku macnaynayno, waxaan odhan karnaa waa data type-ka datada. Haddaba xaraf waxaan nidhi waa nooc ama waa data type. Datadu maxay noqon kartaa? Datadu waxaa weeye tusaalaheeda. Tusaalahuna muxuu yahay? Tusaaluhu waa ba ama ta. Haddii lagu weydiiyo ba waa maxay, waxaad ogta ba waa xaraf. Haddii lagu weydiiyo kow waa maxay, kow waxaad og tahay inay lambar tahay. Haddaba kow waa datadii, ba'du ama biidu waa datadii, lambarku waa data type-ka, xarafku waa data type-ka, calaamaddu waa data type-ka. Haddii lagu yidhaahdo calaamatu su'aalku waa maxay, data type-keedu waa calaamad. waayo calaamatu su'aal lambar ma ahan, calaamatu su'aal xaraf ma ahan. Marka dhinacan bidix waxa ku safan waa data typeskii. Wax kasta oo tusaalaha dhanka midig ka xiga waa datadii. Sida Soomaaligu uu u leeyahay data kala duwan iyo noocyo kala duwan, ayay luqadda Java-gu u leedahay noocyo kala duwan iyo data kala duwan, inkastoo halkan aysan ku dhammaystirnayn. Sida bini'aadamku qoraalka waraaqaha u akhriyo kadibna u fahmo, ayuu kombiyuutarku u akhriyaa codeka iyo datada programyada kadibna u fahmaa. Codeku wuxuu maamulaa datada. Data kastana waxaa waajib ah in ay yeelataa nooc, noocaasoo loo yaqaano data type. Waxaan horay u soo barannay in wax kasta oo kombiyuutarka la geliyo lagu tilmaami karo data. Marka waa muhiim in kombiyuutarka loo sheegaa data type-ka la gelinayo ama nooca datada la gelinayo. Kombiyuutarku wuxuu datada ku xareeyaa memory-ga. Waana muhiim in kombiyuutarka memory-giisa aan la khasaarin ama aan lagu takrifalin. Haddaba si aysan khasaara u dhicin, waa in aan kombiyuutarka u sheegnaa nooca datada aan gelinayno mar kasta oo aan data gelinayno. Bini'aadamka hal mar ayaa laga yaabaa in uu u baahan yahay in loo sheego nooca datada, noloshiisa inta ka dhimanna waxaa laga yaabaa in uu xasuusto. Tusaale ahaan, hal mar ayaan u baahannahay in naloo sheego in xarafka b uu yahay xaraf. Sidoo kale hal mar ayaan u baahannahay in naloo sheego in lambarka kow uu yahay lambar, ama in calaamatul su'aalku yahay calaamad. Balse kombiyuutarku wuu ka duwan yahay bini'aadamka, wuxuuna doonayaa in brogaraamkii kastoo la qoro, marka aad b qortid in aad u sheegtid in ay b xaraf tahay, marka aad kow qortid in loo sheego in kow ay tahay lambar, marka aad calaamatul su'aal qortid in loo sheego in calaamatu su'aal ay tahay calaamad. Sida noocyada qoraalka lagu qoro waraaqaha af Soomaaliga ah uga kooban yahay xarfo, lambaro iyo calaamado, ayaa datada ama xogta luqadda Java-guna waxay uga kooban tahay laba nooc oo guud ahaan la kala yiraahdo primitive data types iyo reference data types. Labadan nooc ayaa laftoodu sii kala baxa. Sharaxaadda reference typeska waxay u baahan yihiin in aan baranno sida objectsku iyo classesku u shaqeeyaan, mana ahan wax fudud oo aan hadda halkan ku baran karno. Marka waxaan ku baran doonaa casharada soo socda haddii Ilaahay yiraahdo. Balse waxaa muhiim ah in aan baranno noocyada loo kala saaro primitive typeska. Primitive typesku waa data types horay loogu qeexay luqadda Java-ga, datada loo isticmaali karo iyo operationka ama hawlaha lagu fulin karo datadaas, iyo weliba cabirka memory-ga ay qaadato datadaas marka lagu xareeyo memory-ga. Primitive typesku waxay ka mid yihiin keywordskii aan horay u soo aragnay. Primitive typeska waxaa loo kala saaraa 8 nooc oo kala ah
byte, short, int, long, float, double, char, and boolean. Si aan usii fududayno sharaxaadda primitive typeska ayaan waxaan usii kala qaybinay primitive typeska 3 kooxood oo kala ah lambaro, xarfo iyo boolean. aan aragno sidaan usii kala qaybinay. halkan waxaan ku aragnaa sida aan u kala qaybinay primitive typeska lambaro, xarfo iyo boolean. qaybtan kore ee sanduuqan weyn ku jirta type kasta oo hoos yimaada ama ku jira dhinacan waa number. halkan wixii ku jira waa xaraf ama text weeye. halkan wixii ku jira waa boolean ama shuruud. booleanku ma lahan luqadaha caadiga ah ee bini aadanku ku hadlaan wax u dhigma, balse waa data type laba mid noqon karta, inay tahay true, inay run tahay, oo false iyo inay been tahay. macnaha way adag tahay si wax lala barbar dhigo af Soomaaliga ama luqadaha kale lagu hadlo ma lahan. waa data type ayadu, balse waad la qabsan doontaan markaad sii dhex gashaan ama tusaalayaal aad aragtaan. jaaga haddii aan ka hadalno numberka waan arki doonaa 16 bitkan waxaan ka uga jeedno. jaaga haddii aan ka hadalno, jaagu sida halkanba ku qoran waxa weeye waa data typekan waxaan u isticmaali karnaa oo keliya hal xaraf iyo hal calaamad, sida calaamatul su'aalka iyo spaceka iyo sida wixii la mida. xarafka markaan leenahay haddii ja uu yahay shaygu, wax kasta oo keyboardkaaga ku jira ama number ha ahaada ama calaamad ha ahaada ama wuxuu doona ha ahaado, character ayaa la yidhaahdaa, waxaa matala ja. laakiin waa in uu ku jira labada qoysin ee yaryar, waa in uu xarafka ku jira. xarafkan wuxuu noqon karaa number, wuxuu noqon karaa calaamad, wuxuu noqon karaa xaraf caadi uu noqon karaa, balse numberka halkan la geliyo number ahaan looma xisaabin karo. haddii aad numberka doonaysid in number ahaan loo xisaabiyo oo la isku dardaro, waa in aad halkan u isticmaashaa meesha numberska inaad horgeysid weeye. waxaan hadda sharaxayaa nambarada. sanduuqan dhankiisa bidix waxaa ku jira data typeski, dhankiisa midigna waxaa ku jira sharaxaadii iyo tusaalayaashii datada, nooca datada data typesku ay qaban karaan. tusaale ahaan marka aad doonaysid in aad computerkaaga ku xaraysid number, waxaa marka hore muhiim ah in numberka inta uu la eg yahay in aad taqaanid. hadduu numberku 100 yahay iyo hadduu 10,000 yahay iyo hadduu 5,000 yahay, waxaad isticmaalaysaa data type kala duwan baad isticmaalaysaa. sababta data type kala duwan loo isticmaalayana waxaa weeye in memoryga la dhaqaaleeyo. masalan haddii aad 100 doonaysid in aad ku xaraysid computerka iyo haddaad doonaysid 20 milyan inaad ku xaraysid, isku memory uma baahnid. so si marka aan u dhaqaalayno memoryga ayaa waxaa laga dhigay data types kala duwan ayaa nambaradii loo kala yeelay. kan ugu yar waxaa weeye byte baa la yidhaahdaa, wuxuu qaataa 8 bit waxa la yidhaahdo oo memoryga lagu cabiro, waan baran doonaa. data typekan waxaad u isticmaali kartaa oo keliya lambarada u dhexeeya -128 ilaa +127 inta u dhaxaysa. haddaad dhinaca minuska eberka dhinaca minuska haddaad ka aadaysid -128 baad ku xarayn kartaa. haddii dhinaca pluska aad ka aadaysid adigoo eberka ku daraya, waxay noqonaysaa ilaa iyo 127 baad ku xarayn kartaa. marka waxaan ugala jeedaa marka aad doonaysid in aad computerka gelisid masalan 100 oo kale, waxaad ka hormarinaysaa byte sida halkan aan sameynay oo kale. waxaan doonaynaa halkan inaan qalimaan ku xarayno computerka, inuu tiro qalimaana noo xareeyo 100 weeye tiradaas. si marka aan u sheegno memory yar isticmaal aan u dhahno, waxaan ka hormarinaynaa byte baan ka hormarinaynaa. masalan datada aan isticmaalayna waa 100, memory weyn uma baahna, data typeka yar isticmaal oo ah data typeka isticmaalaya 8 bit memoryga isticmaal weeye. haddii masalan aan 200 ama 2,000 ama 3,000 aan u baahnaan lahayn in aan gelino computerka, waxaan isticmaali lahayn short meesha aan ka isticmaalnay byte. haddii aan intaa kasii badan sii doonayno, xasuusnaha sida byteku uu ugu eg yahay 127 ama 127 uu ugu eg yahay, ayuu shortkuna wuxuu ugu eg yahay 32,000
iyo xoogaa buu ku egyahay 32,700 iyo xoogaa baa ugu sarreysa. dhinaca minuskana wuxuu aadi karaa 32,700 iyo xoogaa. haddii nambarkaagu uu noqdo nambarka aad doonaysa inaad computerka ku xaraysid uu ilaa iyo 40,000 gaarayo, shortku kuma xarayn karo. waxaad u baahan tahay int wax la yiraahdo. typekaas uu ka memory isticmaal badan yahay, kani wuxuu isticmaalayaa 32 bit wax la yiraahdo, ama memoryga cabirka lagu cabiro oo 32 bit ah buu isticmaalayaa marka aad number ku xaraysid. haddaba data typekan waxaad u isticmaali kartaa oo keliya lambarada u dhexeeya minus whatever billions weeye. hadda way ka badan tahay, aad bay u tira badan tahay xisaabtan. marka wax xisaab aad u fara badan intii bay dadka marka badankood isticmaalaan. long halkan iyaduna way kasii badan tahay, billions way dhaaftay, wax aad u badan weeye, waa tiro aad u dheer marka aad u baahan tahay. floatka intii buu la mid yahay, balse waxa weeye waa isagoo ah sida ujeedaan 32 bit iyo 32 bit weeye labadu, laakiin kan waxaa ku jira decimal wax la yiraahdo, ama dhibcaha. tusaalahan oo kale decimal point baa ku jira, waa 54.32. haddii hadda integer halkan aan ku xareyno, dabcan in 54.32gaas aan ku xareyno integer, 32gaas way lumaysaa, ma helayno. si aysan 32ga nooga luminin waa in aan float isticmaalnaa. floatku wuxuu samayn karaa wax kasta oo point ku jiro wuu noo qaban karaa. floatkuna sida integerga oo kale intuu integerga uu qaado ayuu qaadi karaa, oo laakiin point ku jira. haddaba haddii intaa ka badan aa u baahatid waxaad isticmaalaysaa double oo isagu 64 bit isticmaalaya. aan si guud u sharaxa mar kale oo aan ku celiyo. tablekan waxaad ku aragteen in data type kasta dhankiisa midig uu ku jiro lambar uu la socdo ereyga bit. tusaale ahaan byte waxaa la socda 8 bit, short waxaa la socda 16 bit, int waxaa la socda 32 bit. haddaba lambaradani waxay noo sheegayaan cabirka memoryga ee data typeskan isticmaali karaan. tusaale ahaan haddii aad computerkaaga doonaysid in uu lambarka 300 kuu xareeyo, waa in aad u sheegtaa programkaaga data typeka aad ku xareynaysid iyo cabirka memoryga ay datadaas isticmaali doonto. tusaale ahaan haddii aan tablekan eegno 300 data typeka ku habboon waxa weeye short, waayo byte wuxuu ku egyahay 127, intina aad ayuu uga weyn yahay. haddaba shortku waa 32,767 oo plus ah, iyo intaasoo kale oo hal lagu daray oo minus ah. haddaba 300 waxay hoos imaanaysaa short bay hoos imaanaysaa. haddii aan short dooranno waxaan badbaadinaynaa memory aad u fara badan oo khasaari lahaa haddii aan long ama int dooranno. haddii aan long dooranno waxay la mid tahay inagoo dowlad weydiisanay in ayna siiso dhul aan ku dhaqanno 300 oo digaag ah oo ayna siisay dhul la eg Soomaaliya. meeshaas dhul badan oo dad kale u baahan yahay ayaa ku khasaaraya. haddaba memoryga computerkuna waa la mid. inkastoo aan saas eri, haddana dad badan oo aan anigu ka mid ahay marka ay doonayaan in ay computerka ku xareeyaan nambara yaryar waxay isticmaalaan int halkii ay ka isticmaali lahaayeen byte ama short.